Assalaamu calaykum marka horeysa akhyaarta daawanaysa videogan marka horeysa kusoo dhawaada waxaan maanta aan rabo inaan halkan aan ka bilaabo cashiro taxane ah insha Allah noo socon doona muddo ilaa aan ka gaarayno hadafkeena ama aan ka faa'iideysanayno waxaan barnaamijkan sameeyay markay ka imatay dhinaca ciyaalka dhigana dhinaca Carabiga baahi badan inay u qabaan maxay ahaydey dhinaca luqadda Faransiga doonayaan qof ka caawiya yaan sameeyay ama ugu talagalay barnaamijkan inaan u diyaariyo sidaas daraadeed baan u bilaabay barnaamijkan waana maalintii ugu horeysay ee aan bilaabayo waxaan rabaa maanta inaan sameeyo dhowr verbi waxaan ku bilaabaa untuka hadalkayga ama casharkayga u horeeya conjugationka inta badan waa conjugation waa ciyaalka ay ka xawanayaan marka conjugation ayaa insha Allah maanta rabaa inaan ku bilaabo sidaas daraadeed conjugation wuxuu iska leeyahay horta waqtiyadu iska badan yihiin waqti marka laga hadlayo na waxaa la yiraahdaa dhinaca Faransiga ton ayaa la yiraahdaa saasna oo loo qoraa aad arkaysiin marka uu iska badan yahay waqtiyadu iska badan yihiin for example waxaa jira present ugu horeeya waxaa kaloo jira future waan sharxi doonaa xabxabid insha Allah waxaa kaloo jira passé composé waxaa kaloo jira imparfait insha Allah intaas oo dhan xabxabid baan ayaan igu sharxi doonaa laakiin maanta waxaan jeclahay oo kaliya inaan idin sharaxo maxay ahaydey present-ga ima raba maanta inaan idin sharaxo waxaa kaloo jira plus parfait oo kan ku xidhan kan adaad faantid plus parfait na fahamsa waa sidaas oo kale waxaan oo dhan present horta bilowga maanta waxaan ka bilaabanaa present-ga present-na maxay horta muxuu ka dhigan yahay present waa ficil wax jooga marka laga hadlayo yaa la yiraahdaa present verbiyaduna intooda badan way badan yihiin kuna laakiin intuka waxay ku soo koobmaan saddex group verbiyada waxa la yiraahdaa waxay leeyihiin group marka waxay ku soo koobmaan iyaguna saddex group ayay ku soo koobmaan marka luqadda Faransiga kaliya laga hadlayo groupka horeeya ayaa maanta ku bilaabaya saddexda group waa sidaas kala yihiin mid waa sidan arkaysiin UR midna waa sidan midna waa sidaas saddexda group ayay ku soo koobmaan maxay ahaydey verbiyaduna wax group afraad ma jiro saddexda waxaan ahayn marka maanta waxaan ku horeynaynaa waxaan nigeri present iyo premier group deuxième group troisième group ayaa kala jira marka premier group ayaan ku horeynaynaa premier group waxaa lagu kartaa ER baa lagu kartaa halkee bay martaa ER tan marka la garanayna halkee baa laga garan karaa runtii ER tan aad arkaysiin waxay lagu kartaa premier group markuu yahay premier group ayaa lagu kartaa wuxuuna maraa halka u dambaysa verbiga halkiisa u dambaysa ayuu maraa tusaale ahaan waxaan qorayaa waa bagli waa premier group waxaan inta iga marsa waa verbiga verb bagli waa verbiga laba intaan iska noqday verb bagli waxa weeyaan inka premier group maxay cadeynayaan inuu premier group yahay ER-ta u dambaysa ayaa cadeynaysa inuu premier group yahay marka ER-tan aan ku sheegayo waxay martaa halka u dambaysa verbiga way ugu dambaysaa marka maanta waxaan ku horeynaynaa saa hore aan idin ku sheegay ton waa present baan nigeri ton waa present verbiyaduna ama maanta waxaan ku horeynaa premier group wax la yiraahdo group ama waxa loo yaqaanaa premier group okay hadaba waxaan conjugationeynaa maxay ahayd waxa la yiraahdo verbigan baqli aan tusaalaha hadda aan idin ku siiyay intaan oo dhan aan sameyn just waxaan rabaa in aan idin macneeyo hal shay oo ah pronom personnel il ama waan idin sharxi doonaa waxa soo dhan xabad insha Allah tan oo dhan waan idin sharxi doonaa waxa weeyaan horta
intaas inaad xafidisnaatid waa lagama maarmaan weeyaan, waa lagama maarmaan. inaad intaas xafidisnaatid waa lagama maarmaan. Jeeden, tiden, ilten, nuden, waa fu, waa il avec s, yaa inta loo akhriyaa, halkan kale waa il avec s, intaasoo loo akhriyaa. haddaba jeeden maxay iyadna ay wadataa, maxayse ka dhigan tahay? jeeda waa sidaas weeyaan. dee inta badan waxaan umaleynaya ciyaar carabiga iyo soomaaliga ay akhrin karaan, marka waa sidaas. adiga ama adi waa salame, waa isku mid macnaha. halkan kale waxa weeyaan isaga amaba ta kale ku xigta isaga waxa weeyaan ilja oo kaliya. intaan aan isku khaldin aan ka yar saaro, ilja waxa la yiraahdaa waa sidaas. iltana aad arkaysiina waxa weeyaan sidaas aad arkaysiin waa iyada. nuuda marka ay soo gaadho sheekadu waxa weeyaan anakoo dhan weeyaan, waa anaka. ruudana waxa weeyaan waa inika, waa sidaas weeyaan. maxaa haray halkan inaan isku khaldin, halkan inaan isku khaldin. ilja waa iyaka weeyaan, untuka Soomaalihan waa saa iyaka, waa sidaas. halkan isaga, halkan iyada. naagaha haddaba maxaa loo dhanaa? naagaha waxaan waa iyaka oo naaga un awiyaan untuka ya. Soomaali ahaan dee iyaka oo naaga waa saas maan ku hornaa hadda Soomaali nahay, waa sidaas. marka waxaa kaloo idin sharxayaa maxay ahayd jeed marka baa laga hadlayo kaliyaati premier groupka. marka laga hadlayo jeed waxay iska qaadataa intaan askar masaxo, maadaama aan dee termo xoogi aan sheegayo askar masaxaya. inaku laakiin boos inta iska qabsatiin waa inaan qoratin waa iska muhiim. marka boos inta qabatin videoga iska qorta intaas. fahamkuna waa muhiim in la fahmo wax walba wuxuu uu ku saabsan yahay. slashkii baan ka no halkan baan dhiganaa slashka, halkan ayaan dhiganaa. okay, haddaba premier groupka verbiguna waa baaqley baan verbig waa ka iloobinahay ilmaamina. verbig waa saa maxaa ku kartay waa erta ugu dambeysay kortay waana premier group. premier groupka dad doonaysa loo qoro waa sidaas. waqtiga waxa la yiraahdaa français ton iyo la yiraahdaa ton maanta ka hadlayno pression. pression waxay ka dhigan tahay waqti xaadirka, macnaha halkan maanta lagu qoro waa waqti xaadirka ninkaan joogno, saasay ka dhigan tahay. haddaba jeed waxay qaadanaysaa marka laga hadlayo pression, marka laga hadlayo waxay qaadanaysaa tid waxay qaadanaysaa oo sidee u qaadanaysaa waan intiin sharxi doonaa, waan sheegi doonaa insha Allah kan yar. nuudun waxay qaadataa sidaasay qaadataa, macnaha way ugu dambeysaa weeyaan. okay, labadan waa isku mid galaad waa sidaas weeyaan. marka waxaa la masaxayaa oo kaliya intaas ayaa la masaxayaa, intaas erta ugu dambeysa ayaa la masaxayaa. aan kuleer kala aan saarno tusaale kan baa saarno waxaad si fiican loo arko baan maleynayaa. intaa oo kaleetay ayaa la masaxayaa adiga oo ku bedelaya mar walba marka aad aad qortid waxa ku bedelaysaa t aad qortid es baa ku bedelaysaa ilu aad qortid waxa ku bedelaysaa nu aad qortid waxa ku bedelaysaa ons vu marka qorsin az ila vegas marka qorsin ant. marka waxa su'aal ah intan kartay intan kale calaamadeeyay iminka halkii la marinayo kuleer kale yadna aan saaro saalan waa ka نصف عن الأرك ما ملينا. أنت هالكلها مرنا أنت وعشرين سو كسر عشرين سو بس أنت وتكسر عشرين سو هالكم عليكي واقع سامو كسر عشرين وقرصة إنك قلم مركب قرصي وحساس يا قرصي واقع ويسون قط ما حسب بدلو وكلاتي أنت وكلاتي سبدش انت maxay isku beddelaysaa mar waa
mar waa es. Marka esta aad qoraysid waa t ada ha hilmaamina. Il marka qoraysid ama l marka qoraysid oo kale waa sidaas. Nu marka qoraysid waa uns. Wu marka qoraysid waa z. Il marka qoraysidna waa ent. Inta kale waa way soo noqonaysaa wax soo noqonayaan. Tusaale ahaan practice baran sameeya exercise badan sameeya. Waan siin verbial waan siin waa kan mid ka wareeya. حبيت لبضان إدين كودرو وهكذا حبيت الحاضين إدين كودرو وهكذا كوسو على خلاص وستاس أوكله كونا بلتو هلكا والله إنه هل إن وين حبيت إنه وهكذا ساس براتكس بدنا إن شاء الله حنرجعنا هنا فهمتنا شركة وحنا ندين رجعنا هنا سفيعا وفادي سدونتين إن شاء الله مركز الصعود وحن بسمعنا إن شاء الله ديزن كروبك ترازن كروب كانوا مسكب بدينها لكن هالكم سفيعا إذن كشرح حدون هذول الهرادو واد ما سنتين على نفذ ذي عشركنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.